السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada walaalayaal, waa mar kale iyo muuqaal kaloo xiiso leh. Muuqaalkan waxaan ugu hadli doonaa faa'iidooyinka ay leedahay tobanka maalin ee ugu horeysa bisha Dulxijja ama Carafo. Allah subhanahu wa ta'ala waxa uu ku dhaaranayaa tobankaasi maalin isagoo dhahaya wal fajri wa layaalil ashr. waxaan ku dhaartay fajriga iyo tobanka maalin. kaasi maalmood oo loola jeedo tobanka maalin ee ugu horeysa bisha Carafo ama Dulxijja. Rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxa uu yiri isagoo tilmaamaya tobankaasi maalin fadliga iyo qiimaha ay leeyihiin. ma jiro maalmo uu Ilaahay kaga jecel yahay acmaal la sameeyo tobanka maalmood ee ugu horeysa bisha Dulxijja ama Carafo. faa'iidooyinka tobanka maalin ee ugu horeysa bisha Dulxijja ama Carafo. maalinta koowaad ee bisha Dulxijja ama Carafo waa maalintii loo dambi dhaafay Nabi Aadam calayhi salaam. qofkii soomane dambiyadiisa oo dhan waa la dhaafaa. maalinta labaad ee bisha Dulxijja ama Carafo waa maalintii la aqbalay ducadii Nabi Yuunus calayhi salaam, isla markaana laga soo bixiyay calooshii malaayga. qofkii sooma waxa ay ula mid tahay sida isagoo hal sano caabudayay Ilaahay oo aanan ilbiriqsi ku caasin. maalinta saddexaad ee bisha Dulxijja ama Carafo waa maalintii la aqbalay ducadii Nabi Zakariya calayhi salaam. qofkii sooma ducadiisa waa la aqbalayaa. maalinta afraad ee bisha Dulxijja ama Carafo waa maalintii la dhalay Nabi Ciise calayhi salaam. qofkii sooma Ilaahay waxa uu ka dheereenayaa quusitaan iyo faqri. maalinka shanaad ee bisha Dulxijja ama Carafo waa maalintii la dhalay Nabi Muuse calayhi salaam. qofkii sooma Ilaahay waxa uu ka badbaadinayaa cadaabta qabriga. maalinta lixaad ee bisha Dulxijja ama Carafo waa maalintii uu Alle nabigiisa u furay albaabada khayrka. qofkii sooma wuxuu Alle ku fiirinayaa il naxariis leh. maalinka toddobaad ee bisha Dulxijja ama Carafo waa maalinta la xirayo albaabada naarta, lamana furayo ilaa ay ka dhammaato tobanka maalin ee bisha Dulxijja ama Carafo. qofkii sooma Ilaahay waxa uu ka xirayaa 30 albaabood oo dhibaato ah, waxa uuna u furayaa 30 albaabood oo fudeed ah. maalinta sideedaad ee bisha Dulxijja ama Carafo waa maalinta loogu magac daray yawmu tarwiya. qofkii sooma wuxuu Alle subhanahu wa ta'ala siinayaa ajar uusan ogeyn Ilaahay mooyaane. maalinta sagaalaad ee bisha Dulxijja ama Carafo waa maalinta la istaagayo banka Carafo. qofkii sooma Ilaahay waxa uu u dhaafayaa dambiyada sanadkii hore iyo sanadka soo socda, waana maalinta ay soo degtay aayadda Qur'aanka Kariimka ee dhahaysa اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. maalinka tobanaad ee bisha Dulxijja ama Carafo waa maalinta Ciidul Adhaa. qofkii wax udxiyeysta uguna dhawaada Allah subhanahu wa ta'ala waxa uu dhaafaa Allah dambiyadiisa. tobankan maalmood ee bisha Dulxijja ama Carafo waxayna laga doonayaa kaliya maahan inaan soonno, waa inaan badinaa salaadaha waajibkana aan ku ilaalinaa, jameecada aana badsannaa, sadaqada iyo aqrinta Qur'aanka iyo dhammaan digriga iyo salaadaha sunnooyinka ah. Ilaahay ha inaga yeelo kuwii ka faa'iideysta dhammaan acmaasha iyo fadliga ku sugan tobankan maalmood.